Waa anigoo Dr. Cabdiqaadir dhakhtarka carruurta. Maanta waxaan wacyigelin yar ka bixin rabaa arrin ku saabsan carruurta. Maadaama carruurtu ay yihiin mustaqbalka bulshada, maadaama carruurtu ay yihiin iftiinka bulshada, haddii carruurta aan u dadaalno, maadaama ay noqonayaan hogaamiyayaasha iyo waalidiinta mustaqbalka, jiil wanaagsan iyo bulsho wanaagsan ayaan soo saaraynaa. Fariinta ugu hore waxaan u dirahayaa macallimiinta dugsiga. Markaan anagu dugsiga dhigan jirnay, markaan dugsiga ka soo baxno, macallinku hadduu bannaanka nagu arko anagoo banooni ama ciyaarayna, ama noocay noqotaba wax qaybaha ciyaarta ka mid a ciyaarayna, maalinta dambe markaan dugsiga imaano waana la garaaci jiray. Ciyaartaasoo loo haystay waqtiga ayadaa inayn muhiim ahayn. Laakiin walaalayaal, saad ogsoon tihiinba duunyadu way isbedeshay. Mihii meel ay ay ku ciyaaraan, ay ku mashquulaan badanaa magaalada ma lahan. Ciyaartuna waa arrin aad muhiim ugu ah caafimaad ahaan iyo waxbarasho ahaan muhiim weyn u ah carruurta. Marka macallimiinta dugsiga waxaan ku boorinayaa in waqtiga ay dugsiga ku jiraan ilmaha waqtiyada qaarkood inay istaajin karaan ilmaha oo ilmaha la jimicsiiyo. Waqtiyada qaarkood in meelaha dugsiga loogu sameeyo waxyaalahan ilmuhu ay ku ciyaaraan oo ay ku laalacshoodaan, oo hataa waqti daqiiqada yar ha ahaatee ilmihii lasoo bixiyo oo physical activity-ga laga dhigo qayb ka mid a programka dugsiyada. Maareeyayaasha iskuulada ayada sidoo kale, maadaama dhibkaasoo kale uu ka jiro, ayagana waxaan ku boorinayaa the same thing oo ah in lagu talagalo oo lagu dadaalo physical activity-ga iskuulada lagu sameeyo. Haddii kii bannaanka u yaraadana, ku indoors ah oo guryaha dhisan gudahooda qalabkii ilmaha ay ku ciyaari lahaayeen loogu sameeyo kala duwanaa. Taasi waa in lagu dadaalo. Dadka guryaha ka ganacsada, milkiilayaasha guryaha, fariintan u dirahaya waxay tahay walaalayaal, dadka guryaha aad dhisaysaan degi doona boqolkiiba markay ugu yartahay 60 waa carruur. Bulshada saa u badan waa in laga taxadaraa oo baby friendly area loo sameeyo, oo guriga la samaynhayo waxyaalaha dhib u keeni kara ilmaha meeshay kasoo dhici karaan iyo hawlahaasoo dhan laga taxadaro. Waxaa kaloo muhiim ah in ilmihii loogu talagalo bannaanka ama qaybaha dhulka ka mid a in loo sameeyo meel ay ku ciyaaraan. Haddii dhulku uu idinku yar yahayna, in programka lagu daro sida amenities-ka ama hawlahan service-ka ee guriga la samaynhayo loogu talagalo sida parking-ka iyo qaybaha la midka dukaamada ah, in lagu xisaabtamo carruurta meeshay ku ciyaari lahaayeen, loo sameeyo meel indoors oo gudaha dhexdiisa oo alaabtii oo dhan loo keeno. Haddaad rabtaan meeshaasi ganacsi ahaan u isticmaala, haddaad rabtaanna ku dara kirada guryaha si carruurta ereyada gurigaasi degan ay uga faa'iideysan karto service-ka aad bixinaysaan.